السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان برشاد الصوماليات صحابتيدا قرابديدا انتي مغلقي موقعي تغانا وحان الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين نستيح السما فلي وفردي دبلن كوغيدي ودن كسورن كسو سلاميسا الحمد لله رب العالمين maanta waxaan heestaan dabcan qof baa iga soo codsaday dabcan aniga laftigayga iyo baryahan xoogaa stress baa igalo stress baan ka sheekeynaya marka hadda waxaan rabaa bal inaan ku yara farxadda ku yara dhiftaan rabay marka waxay tiri gabadh baa ii soo dirtay heestan saameyn bay u leedahay waxay tiri waxa la yiraahdaa gabadha maanta qisada aan ka hadlayo waxay tahay waa qiso jacayl waa ta heesta jacaylkana aan ku furay qof gabar baa ii soo codsatay inaan ka sheekeeyo qiso jacayl aniguna runtii waaba la dhacay marka ii sheekeynaysay qisooyinkeeda iga sheekeynaysay qisadaan la dhacay bay ahayd gabadha waxaan baxshay baydan laakiin lama yiraahdo magaca waa baydan iyo baashe baydan iyo baashe waxay ahayn laba qof oo aad isku jeclaatay gabadhu waxay tiri waxaan ahaabay tiri waxaan ku dhashay miyi baan ku dhashay baadiyaan ku dhashay waxaan ahaabay tiri gabar yaro aad qurux badan runtii de waa gabar qurux badan ayadu ma dhahays waa qurux badan laakiin waa sida qiyaastii sheekadii gabar yaro qurxan oo edeb badan oo maasha Allah oo dhisan oo baadiyo ku soo kortay ahay gabadhi marka baadiyo way ka soo carartay magaalo ayay u soo carartay waxay tiri magaalo noqotay rabtay waxay tiri gabadhu maxay ahayd runtii rag waa yara shukaansan jireen rag badan baa shukaansaday bay anoo yaro waxay tiri 12 jir aan weynayn waxay tiri baadiyo waa iska dhib badnaa waxay tiri xataa kuwa waan ka cabsan jiray tiri waxyaabo badan cabsi ay soo maray laakiin qisadan baydan iyo baashe ayaa ila fiicnayd waxa iga sheekaysay baydan waxa way magaalada soo gashay markay magaaladii soo gashay waxay tiri guur baan guursaday laakiin guurkaas hore wax badan saameyn iguma yeelan bay tiri waxay tiri waa yara lay furay tiri waxay tiri markii dambe magaaladii wax dad igu soo dhaweeyay maan arag bay tiri marka waxay tiri meel shaah gabar ku karsata oo aan qaraabanahay ma aragtay shaah aan kula karsado waxay tiri shaahii baan waxay la karkarsan jiray meesha siinay baa la yiraahdaa bay tiri kulli anu waan arkay siinay waana maqlay dadkuna badan way maqleen wayna yaqaaniin siinay waxay tiri marka siinay baan shaah ku karkarin jirnay way tiri marka waxa way siinay meel waxa iska ahayd jaadka lagu gado oo dadku iska yimaadaan oo la iskaga qaylo oo shaah lagu cabo shaahsan karin jiray tiri tabakadaasna waxay tiri shaah ku karin jirnay tiri tabakada waxay tahay qol xooga iska roon bay ahayd daaqad weyn oo walaabay tiri kale to kuraas lana wuu ahaa halkaas waxay tiri shaahna ka dalban jiray way tiri badan nimanka baabuurta wata ayaa waxay tiri shaahna ka dalban jiray waxay tiri marka baashe
maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay tiri anigoo nin meel baabuur taagan nin yiri way shaahi keen markaa tan shaahi daaqada ka seenayo ayuu waxay tiri ii yimid bay tiri oo yiri naa gabar waxaa taa qurux badan maxaa shaahi siinay u karinaysaa ma wax kaa wadaad weyda meesha ayuu igu yiri bay tiri gadaalkay uu ka hadlay tiri markaan saa u soo jeesana waxay tiri markaan arkay tiri baashe waxay tiri waxbaa igu biday tiri waan naxay tiri waxaan ay bay tiri maxaa qofku nacam waxay tiri qof wuxuu ahaabay tiri nacam wax iga bideen maxay tiri lama hadlin waa iska soo dhaqaaqay dabakaayad baan kusoo noqday tiri gudaha iska soo galay shaahiga gado daaqadu ii soo fariistayo sibu ii fiirshay tiri ninku waxay tiri runtii markay tilmaantiisa ii sheegtay waxaa bay tiri wiil dheer oo jirkiisu dhisan yahay oo indho waaweyn oo fanax leh oo maasha allah timo badan oo waxay tiri markaas da-da adugu markaa dhowr iyo 20 jir 25 jir meelahaasa waxay tiri gabadhuna waxay tiri xoogaa markii kama da-weynin laakiin naag la soo fura ahaa bay tiri ka wallaahi waxay tiri aad iyo aad uga jajaban tahay maba islahayn bay tiri rag baa sidaas ku jeclaanaya waxay tiri waa iska yara qaqajilay oo shaahi maan ka gatay oo waxay tiri anigii waxay tiri aad u fiirinayno waxay tiri laakiin lay haayo lita aan waxay tiri wax igu bideen laakiin waxay tiri ma ahayn bitir dumarka rag iska daba tuurtuura oo waa ku jeclaa iyo xagga weeye waxaas yiraahdo ma ahayn bitir waxay tiri marka runtii waxay tiri shaahi maan ka gatay badanaa waxay tiri iga raali ahaada waa hawlahayga wey markii aan bahalka aan sheekaynayo waan isku yara mashquulaa wuxuu yidhi beri baan anoo life ku jira ayaa waxaan ka sheekaynayay waxaan ku dhahay horta dadku maxay isugu mashquulaan waxsaasaan ka sheekaynaya ma ogtahay marka wiil baa wuxuu soo yidhi ii soo qoray nasteexadii lafta waa isku mashquulsanta maradaada ku mashquulsanta marka waa caadadeeda wey marka maradaan ku mashquulaa marka gabadhii waxay tiri baashe waxbaa iiga biday shaahi baan iska gatay waxay tiri wixii ka dambeeyay maanta baashe waxay tiri waa ii imaan jiray tiri markii waxay tiri uusan taraag u bixin baawur taraag u watay waxay tiri meesha uu soo fariisay shaaha soo gadan jiray wasagii fadfadulin jiro waxay tiri hello waxay laakiin ma hadal badnayn bay tiri anigu qof furfuran ama hadal badan ma ahayn bay tiri gabadha waxay tiri qaraabadaana meesha ila lihi ayada waa naag sheekayso furfuran oo raggan u sheekayso waxay tiri ragga u tagto waxay tiri anigu laakiin shib u hay waxay tiri marka wiilkii iyo 3 nin oo saaxiibadiisa meesha way rukunteen bay tiri meesha markay rukunteen gabadhii qaraabada aan ahayn baa la sheekaysato la yara faraxdo la yara kaftanto waxay tiri anigu halkaan baan waxay tiri shaahi gataa markii dambe waxay tiri waa la isku kay sheego waxa leeyahay waagay qoftaani maxay ahayd baasha waxay tiri waa nin balay boy ah waxay tiri naagaha waxay tiri sax u kala waday tiri wuxuu la yaaban yahay tiri hadalkan aan la hadlay yuu leeyahay tiri waayda ay kula hadli laadahay qoftaan yaa waxay tiri marka sheekadii waxay socotaba uu yimaadaa maalin walba shaahan buu iga gataa wuu iyala sheekeeyaa wuu iyala fadfaduuliyaa laakiin anigu adaa shidanaaba shidan waxay tiri shib gabadhii waxay tiri marka kaalay walaashaa ma dhagalaada haa xoogaa bay dhagalaada wale haa waa kaftamaya qoftan waa qof iska xishood badan haye afartiina waxay tiri ninkan odagaahay aan loo ifiirshaabay tiri waxay tiri waa nina buur waaweyn bay tiri indhahaas unbuu igu fiiray baat aniga waxay tiri waa yara qajilaayo shaahi xataa marmar buu waxay idhahdaa tiri yaa islaanaho ka haddaminta waxay tiri anigayna waxbaa waxay tiri si iga ah waxay tiri sheekada waxay socotaba baashi wuxuu yimaadaba waxay tiri markii uu magaalada jooga waa ii yimaadaa maalin walba sidoo waxay tiri barqadii marka hawlihiisa soo dhamaysto usoo fariisto habeenkiiba iga tagaa bay tiri gabadhu ama ha joogto ama ha maqnaato dad ha yimaado ama ha maqnaato halkaa unbuu waxay tiri indhaha guluc ka siiyaa berigii dambe waxay tiri xataa naaga uu saxaabo uu leeyahay baa waxay tiri midha iga maseeray maxay ahayd qofta meesha shaaha karisaayo uu baashi ag taagan yahayo waxay tiri aniguna fidanaaba shidan halkaygaasaan waxay tiri iska fadhiya shaahaygaas iska gataa maalmaha ka mid waxay tiri xataa naag rabta inay ila dirto waxay tiri awgiisa ninkaas masayr igu soo xaydxaydato daaqada qof taagan baan u jeedaa qofta muxuu meesha ku tahay nimankii nin ka mid ah u yimid waa kaxeeyay tiri marka baashe iyo bayden jacaylkeeda wuxuu ahaa jacayl dhagala oo qarsoon laakiin ninka la yidhaha baashe baa usoo bandhigtay habeenada ka mid uu yidhi gabadhii heblaayoy caaw anaa wadahayey ii firaaqay camal
waxay tiri gurigayga u lugaynaa markii meesha la xiro waa lugaynaa bay tiri hadhow waxay tiri meesha markii la xiray gabadhii mami anaa ku wadahay soo bax waxay tiri waa sii yara lugaynay marka intaan sii yara lugayna wala sheekaystay gurigii markaan tagnay wuu fariistay wuxuu yidhi saaxiibay walaalay macaanay waan ku danaynayaa waan ku rabaa camal saas miyaa haa waxay tiri 2 kelmo ayaan ka aqoon bay tiri hal kelmo ayaan ka aqoon bay tiri markii sheeko la isoo jeediyay waxa oran jiray bay tiri ma gaabsi baa hartaa mise guur baa rabtaa marka waxay bay tiri baashow ma guur baa hartaa mise gaabsi ma xume ma baa guur baan ka rabaa xalaal cali xaraan ka marab okay you welcome asbaranayna baashe iyo baydan jacaylkoodii waa bilow waana taxane insha allahu waa qiso la yaab leh waxaan rabaa inaan halkaa kasii wado subscribe barnaamijka ii saara saaxiibayaal iyo like gambalaalkana taabsadaas in kugu soo dhaco markasta ilaa waa sheeko xiiso badane sheeko aad ka yaabi doontaan wey marka subscribe kaagala baqaylinana subscribe ii saara maxay ahaytoy waana sheeko taxanaa oo aad iyo aad u qiimo badan aan aad iyo aad u jeclaaday marka sheekadaasaan wadi doonaa waan soo geli doonaa waana idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa baashe iyo baydan iyo sheekadii qubanaha ahayd oo jacaylka waxaan u baxshay sheekada xubbi iyo xishood sheekada waxaa la yidhaha xubbi iyo xishood baydan iyo baashe iyo qubane sheekada qubanaha iyo subscribe iyo like saaxiibayaal kulanti wacan